Asalaamu calaykum. Saadaasha dhaqaalaha ayaa tilmaamaysa in dalalka hadda soo koraya mustaqbalka u socdaan si ay hogaamiyeen dhaqaalaha adduunka. Warbixintan oo ay daabacday majalada laga leeyahay dalka Spain ayaa sheegtay saadaasha dhaqaalaha iyo isku dheelitirka adduunka ee 2030 ay muujinayso in wadamada ku jira geedi socodka horumarka isla markaana leh dhalinyaro ku filan, xasiloon iyo korriin dhaqaale ay u dhow yihiin in hoggaanka u qabtaan dhaqaalaha adduunka. Haddaba muuqaalkan waxaan idinkula wadaagayaa dhowr waddan ee la saadaalinaya inay noqdaan wadamada ugu hodansan adduunka marka la gaadho sanadka 2030. 1. Shiinaha. Dhaqaalaha Shiinuhu wuu korayaa waxaana lagu wadaa inuu noqdo mid u dhigma 6% guud ahaan dhaqaalaha adduunka, iyadoo sanadka 2030 la daraasaday inuu Shiinuhu noqdo waddanka ugu dhaqaalaha badan adduunka oo idil. 2. Hindiya. Dhaqaalaha Hindiya wuxuu sanad walba kordhaa 7% dhaqaalaha adduunka, oo daraasadaha qaar ayaa tilmaamaya in sanadka 2022 uu kobci doono 7.2% dhaqaalaha adduunka. Khubarada dhaqaalaha ayaa aaminsan in dhaqaalaha dalkan uu ka mid yahay kuwa ugu kobaca badan adduunka, taas oo dhigaysa inuu ka mid yahay dhaqaalaha labaad ee ugu badan adduunka marka la gaaro sanadka 2030. 3. Maraykanka. Dhaqaalaha Maraykanka oo ah dhaqaalaha labaad ee ugu muhiimsan adduunka ayaa haddana ah dhaqaalaha ugu weyn adduunka, sida ay tibaaxaysa hay'adda lacagta adduunka. Dhaqaalaha Maraykanka wuxuu sanad walba kobcaa 2.6% dhaqaalaha adduunka, balse waxaa la filayaa in hoos u dhac ku yimaado bilaha fooda inagu soo haya, taas oo u horseedi karta inuu meesha ka baxdo saamayntii ku lahaa adduunka. 4. Indonesia oo ah dalka 7aad ee ugu wax soo saarka badan adduunka ayaa leh dhaqaale sanad walba kobca 5.2% dhaqaalaha adduunka. Sida ay saadaashu sheegayso, dalka Indonesia waxa uu noqonayaa waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka marka la gaaro sanadka 2030.